wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shirka isku xirka howlaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo 3 biloodba mar la qabto waxaana looga hadlayay dardargelinta howlaha hay'addu hayso. wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa noo faahfaahinaya warka. ujeedada shirkan ayaa mid loo galeeyahay tayeenta iyo sare u qaadida shaqada adag ee hortaala hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda isla markaana lagu soo bandhigayay caqabadaha iyo horumarinta adeegyada ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed. waana shirkii toddobaad ee hay'adda u qabata mas'uuliyiinta laamaha ee gobolada dalka. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya gaashaanle sare Cornel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ayaa ugu horeyn sharaxay waxyaabihii u qabsoomay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. waxaa ugu horeeyay in inta badan aan dhameystirno qorshihii ku aadanaa xuduudaha dalka oo barihii qorshaha inoogu jiray oo 4 ahaa laba kamid ah qorshahoodii in la dhameystiray iyo fulintoodii mid kamid ahna lagu guuleystay oo dib loo howlgeliyay labada kalena ay diyaar u yihiin hadda in la howlgeliyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riisow ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay xoojinta wada shaqeynta adag ee ka dhaxaysa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. waxaan naga go'an inaan hay'adda si dhow ula shaqeyno dhammaan dokumentiyada muhiimka loo baahan yahay in la sahlo loo fududeeyo shacabka iyo si looga maarmo Cabdalla Shideeye iyo musuqmaasuqna waxaan dhammaan goboladana ayagana ku dhiirigelinaynaa inay nidaamkaas hagaajiyaan ayagoo la shaqeynayo hay'adda socdaalka. waayo hay'addu waxay ku tiirsan tahay hay'adihii kale siday ula shaqeeyaan. haddii dokumenti been abuur ah oo ama hay'adihii kale aysan tallaabana ka qaadin ama ay u soo gudbiyaan runtii taasna caqabad weyn bay ku noqonaysaa hay'adda. marka xeeryaalaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in loo baahan yahay dhowridda sharciga dalka u yaalo si loo ilaaliyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. qof immigration-ka baas qof wadanka ka bixi kara isagoon immigration-ka ruqsad ka helina male qof wadanka soo gali kara isagoon immigration-ka ruqsad ka helina ma jiro qaanuuniyan wasaas. safiir ha noqdo dawlamaadka ha noqdo UN ha noqdo cid kasta ha noqoto qof aan immigration-ku exit ugu dhufanin wadanka ma bixi karo. qof aanu immigration-ku entry ugu dhufanina sharciga wadanka ma soo gali karo. halka harto in la calaamadeysto way. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale oo daafuray shirka ayaa kula dardaarmay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adda socdaalka inay ka dheeraadaan wax walba oo musuqmaasuqa oo caqabado ku keenaysa shaqada qaranka loo hayo. waxa uu kusoo tihiin muraayada laga soo galay wadanka Soomaaliyeed waa immigration-ka haddii noqon lahayd dhinaca airport-ka xuduudaha iyo dekedaha. marka waxaan rabnaa haddii la yiraahdo meesha marka hore ugu horeysa laga arkayo ama mar rabo in magac ku dhufto wadamada kale Afrikaanka marka tagta dadka ka shaqeeya immigration-ka ama airport-ka waxa dhici karta inuu qofkaas wax lacag weydiisto. marka waxaan rabnaa arintaas in laga waanto maanta fursadaas aan ka faa'iideysanayo qofku rabo ahaada qof walba sharciga ka sareeyo qofku musuqmaasuq lagu arko talaabo sharciga laga qaado. waana la socotaan in maanta dad badan oo gaasimiyaal ahay ama muwaadin Soomaali shaqaale ahay inay xiriyihiin maanta musuqmaasuq. marka waxaan idin digayaa musuqmaasuq asnaas ka ilaalisaan idin digayaa. hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa hor yaala qorshayaal ay ka mid yihiin dhameystirka dib u howlgelinta bar kontaroolada xuduudaha dalka, dardargelinta dhismaha xarunta dhexe ee hay'adda, dhameystirka dib u eegista sharciyada socdaalka, baasaboorka iyo sameynta sharciga dhismaha hay'adda. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.